الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواتي walaalahayga dhammaan Soomaaliyeed waxaan rabaa caawa inaan halkan idinkala sheer gareeyo arrimo yar oo aan isleeyahay way anfici doonaan community-gaaga. arrimahaas oo ah habkaan u caawinaa caruurta waxaan u caawin karnaa siyaabo kala duwan si bulshada wadanka ula qabsadaan. caruurta waxaan waxa ay aasaas u ah nolosha in badan oo hadda oo dhibaatadii hore waa ka soo kabsanaynaa in badan oo kamid ah, laakiin wali waxbaa naga maqan. kuwa banaanka jooga inaan soo celinaa naga maqan, kuwa xabsiyada ku jira inaan u sameyno mentoring and rehabilitation ugu sameyno. waxa ayaa ka qayb qaadan kara oo nagu caawin kara arrimahaas. maxaan dad intee la eg ayaa caawin kara ciyaalkaas haddaan isu tagno in badan oo kamid ah waan soo celin karnaa haddii Ilaahay yiraahdo. kuwa jooga marka oo hadda yar oo sii socdo riskiga ku jiro maxaan u sameyn karnaa? kuwaas hore dhibaatadii way gaartay, ayaga waxay u baahan yihiin awood fara badan in la isugu geeyo sidii alle iyo sidii looga soo saari lahaa dhibaatada hadda haysato oo fogeysay meel fogna geysay. laakiin waxaa jira hadda qolyo kale oo yar oo ayagana jidka ku socdo, kuwaas sideen jidka uga soo dhaweyn karnaa ama aan uga duwi karnaa jidka. ilmahaas waxay tahay inaan u sharaxno in badan oo abaalmarinana aan ku siino waxyaalaha oo aan discouragement badan uga sameyno dhibaatooyinkaas anagoo tuseyna natiijada iyo cawaaqib xumada ay leedahay, annaga oo u sheegayna isla markaana u helayna nidaamyo kale oo ayagii lagu mashquuliyo. ilmihii haddaysan helin meel lagu mashquuliyo si uga kolay wax uun inay qabtaan waayo. midda labaad, ilmaha markuu teenager yahay wax badan oo wuxuu rabaa caawinaad ah, ka warqabid ah, dabeecado badan ayaa jiro oo qofka markuu teenager yahay ay caadi tahay in uu sameeyo isbedelka hormoonada ay keenaan oo ah inuu cunuga xoogaa dabeecadii bedelanto oo iska xanaaq dhawaado ama oo guriga isku xiro ama oo cidii xoogaa yar ka fogaado ama oo hurdadii ciyow seexawaayo, nicitaan yaro oo dadkii uusan habi xoogaa ku wada ahayn, qolku jirid, waxaasoo dhan iyo fudayd yaroo marmar iska yimaada. intaasoo dhan waa arrimo caadi ah, laakiin calaamadaha lagu garto ilmaha inuu ilmo xun aaday ama uu dhinaca xun u socdo waxaa kamid ah ilmihii wax qaad barto ama banaanka wax ka qaaday ama gudaha wax ka qaadaya ama wax qaldan oo fara badan oo xatooyada ugu horeysa sameynayo. ilmihii oo dadkii dilaayo ama dagaal fara badan iyo cay xad dhaaf ah keenayo. guriga markuu joogana asluub daradiisa ay aad u fara badanto, ixtiraamka uu ka yaraanayo, ilma dilida lagu arkaa asoo wax walba haraantinayo. intaas waa waxyaalaha oo loo dulqaadan karin abnormalka ah in caawinaad oo cunuga ka helan uu u baahan yahay. inuu maqnaado habeenkii oo kale ayaa kamid ah ama oo very late yimaado amaba sometimes la xiro. intaasoo dhan waa calaamadaha lagu garto in ilmihii uu raacay ilmo qaldan. marka qofna ma qasbi karto, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo dejiyo annaga. laakiin waxaana la ka rabaa inaan jilad badan oo ay dadkan ilmahooda ku badbaadsadeen aan ka barano, iyadoo ah in la caawiyo oo meelo badan oo activities laga helayo ama counseling laga helayo. counselingka aad ayuu muhiim u yahay ilmaha dad wax u sheego
oo khabiiro ah ayaa jiro oo dowladdu ay fandigareyso kuwaasoo kale counselinka sameeya waxay ka caawin karaan ilmihii haddii oo wax oo health problem ah uu jiro marmarka qaarkood ay fitamiinada qaar yar yihiinna way imaataa behavior problemka iyo akhlaaqyaadka xun iyo waxyaalo oo qofta ka fiirsan waana qayb ka mid ah cudurrada maskaxda gala qof mar walba caaytamay ama dagaalamay ama qaylinay haddii aragno anaga qoftii dharka dhigata kaliya u naqaana inay waalan tahay laakiin waalida xoogaa yar oo ka sokaysaa jirto oo anagu aan inteena badan ku baraarugsanayn marka biidnillaah waa in la mentor gareeyaa ilmahana la fiiriyaa ilmo sidii waalidku ay u maleynayaan inuu cunug akhlaaq xumo kaliya u qaylinayo yahay oo hadhowti waalidi oo ay kusii badatay oo intay waalidku la qayliyaan waxaan maqlaayay hadda ayaan dhaweyd WhatsApp-ka gabara aabaheed bakeeri madaxa uga dhufatay inay fiyowdaay in kale yaa og waxaa hadda la wadaa gabar ilmaheedii dishay laba cunugay dhashay inay kow ka siisay iyo inay ka siin rabtay labadaba way u ekayd gabadhaas waxaa helay family problem cabaar daashaday nimanka carabta ahna gabdhaha aad ayay u abuse gareeyaan gabadha Soomaali ayay ahayd ayaa la yiri marka problemka oo familiga aad iyo aad ayuu saameyn xoog leh ugu yeeshaa cudurrada maskaxdana inta badan ayaga laga qaada ama ninku ha qaado ama gabadhu wiilku ha qaado ama gabadhu ha qaado marka ilaahayna cawaaqibteena ha sameeyo waxaa intaasoo dhan muhiim u ah in la isla wadaago bal on campaigno iyo family community outreach badan ay sameeyaan oo community-yadu ay mas'uuliyad badan is saaraan masaajida in badan ay bulshada ka caawin karaan communication barrierska haystan ay ka sixi karaan soo ummadda Soomaaliyeed oo masaajida oo wadamada aan islaamka ahayn noo fadhido kicitaan weyn ayaa la idinka rabaa ilmihi hadduu xabsi galo soo booqashadiisa wax badan ma sameynayso laakiin before uusan cunuga xabsi galin ayaa la rabaa inaad haysaan waxaan maqlay habeen dhaweyd wadaadkii imaamka sheekh masaajidka haystay inuu yiri waxaa jirta 14 markay gaaraan yaan 14 markay intaysan gaarin barnaamij ina u sameeysiin waaye masaajidka lagu celiyo ilaa ay 24 sano ka gaarayaan oo aad caawinaadaas masaajidku qayb weyn ka qaato waalidiintuna waa u diyaar hadii Ilaahay yiraahdo wabillahi tawfiiq waxa idinka sugeynaa waa feedback wanaagsan ilaahayna cawaaqibtan iyo tan caruurteena iyo tan islaamka waxa sameeyo wama tawfiiqna illa billah